الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. magacaygu waa Cabdullaahi Cabdiqaadir Jimcaale sida wada taqaanaan kusoo dhawaada barteeda Facebook. Waxaan ka hadlayaa dhowr barnaamij oo quseeya dhalinyarada. Waxaan aad u daneeyaa in horta dhalinyarada ama jiilka cusub ee soo baxaya aan wax u sheego. ولو أنا شيخ أهين ولو أنا داعي أهين ولو أنا أهين بروفيسور علمي وكوجو سجب صدي عندنا نندل يرايو دتكي سجعل ربنا إنه ماركتي وح قريبو أما وح أسكر دي أيانه وحلا يابا إن دلني رده هترجوكته أي قابك أي وح أفهم لهاين أما قابك أي وح أدريسن لهاين وصنهين قابك أي ديوجا هدر وحشيجا أما دتك وانية ay maaragtay wax u sheegaan. Waxa laga yaabaa qaar aniga aan isfahmayno ama hadalkayga jecel ama ka hela inay wax ka faa'iidaan. Soo dhawaada dhalinyaro, waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex shay. Midka koobaad wuxuu yahay sabarka. Qodobka koobaad waa sabirka ama waxa la yiraahdo samirka, inuu qofku samir iyo dulqaad iyo adkaysi yeesho. Qodobka labaad aan doonayna barnaamijkayga maanta ku falanqeeyeen waxa uu yahay inaad bay'ada ama cimilada habba dhinaca ay tahay aad ula dabaalato. Sidoo kalena midda ugu dambaysa waxa ay tahay fursadda iyo sida loo ogaado fursadda. Waa maxay fursad horta inaan qeexno? Intaa kadib marka barnaamijka waan iska soo gabagabayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Qodobka koowaad aan jeclahay inaan soo qaato waxa uu yahay samir. Samirku muxuu yahay? Samirku horta waa eray asal ahaan ka yimid Carabiga waxaana diinteena uga jira boos weyn inna allaha ma'a saabiriin wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. samirka waxaa qisada ugu weyn ee samir ah ee la soo qaato ama tusaale noogu filan ay tahay Nabi Ayub alayhi salatu wasalaam. Waxaa ku dhacay xanuun aad u daran oo asiibay jirkiisa ama maqaarkiisu inta uu balolay dadkiisii oo dhammaan ay ka haajireen oo xoolaha iyo hantida iyo dakhliga iyo waxa dadkii zamankiisa noolaa ku noolaayeen Ilaahay uu ku imtixaanay oo nin cayra noqday xanuunkaana Ilaahay ugu daray. kadibna waxaa la imtixaanayay samirkiisa ilaa markii dambe uu noqday qofkii dadka ugu samir badnaa. waatana la isugu duceeyay Allah ku siiyo samirkii Nabi Ayub. haddaba samirku waxa uu laf dhabar u yahay nolosha, waana midka ku baraya in aad sugto waqtiga ugu habboon ee aad qaadi lahayd tilaabada aad ku guuleysan lahayd. samirku waxa uu ku ogolaanayaa inaad tilaabo walba oo aad qaadaysid aad u qaado adiga oo og guusha aad ka dhalin doonto, iyo sidoo kale inta wadada guushaada aad ku jirto inaad noqoto qof adkaysi u leh caqabadaha iyo turunturooyinka nololeed ee kula soo gudboonaan kara, haddii ay noqdaan kuwa dhaqaale, kuwa aadanaha ka agdhow ku geysto, iyo sidoo kale kuwa kaaga yimaada xag rabbaani ah ama se kuwa sida caadiga ah dadka ugu dhacay masaa'ibta sida in awlaadda laga qaado, in caafimaadku kugu yaraado, in wixii awood sare ku yimaada. sidoo kale samirku wuxuu ka dhigayaa ama se uu ku siinayaa fursad aad Ilaahay uga ajir xisaabsato. oo Ilaahay wuxuu yiri qofka dhibta gaadha ku sabra ee aniga dartay ugu sabra waxaan ku abaalmarinayaa abaalmarin aanan qof kale abaalmarinayn. marka samirku boos aad u weyn ayuu uga jiraa nolosha. Soomaaliduna waxay tiraahdaa sabra sidkiisu hela. marka waxaan rajeynayaa inaan qodobkaas halkaas uga bixi doono. midda labaad ee xigtahay waxay noqon doontaa in qofku uu bay'ada ama cimilada uu ku nool yahay hadba dhinaca ay u soo wajahdo oo noloshu ay side ka siiso uu qofku ula dabaasho. maxaa loola jeedaa macallino ama walaal kayga dhageystaha ah ee daawanayo? waxaa loola jeedaa waxay tahay qofku markii ay nolosha iridi ka soo xiranto ma ahan inuu gacmaha isa saarto meel fariisto oo yiraahdo aniga yes waan isdhiibayaa, I'm gonna give up. No, that's not the way. waxaa loo baahan yahay
in aad samayso isku day haddana guul darayso haddana isku day haddana guul darayso. Guuldarooyinkaasi waxay ku barayaan in aad noqoto khabiir iska ilaaliya guuldarro kale si uu u gaaro guushii saxda ahayd ee uu beri ku naaloon lahaa. Marka waxaa jirta waddankeena maanta waxaad arkaysaa dhalinyarada markii ay wax soo bartaan oo ay kuliyad soo bartaan, tusaale ahaan wuxuu soo bartay computer science markuu soo bartay shaqo wuu waayey amase software engineer wax shaqo computer siiya wuu waayey, gurigu iska fadhiisanaya xaafadu maaragtay hiif iyo hiiraan, maamada inuu la dagaalo, walaalihiis inuu cayrsado looma baahna. Amase qaarkood waxay ku tagayaan waxyaabo aanan u qalmin oo kale ayay ku qancayaan. Marka ama shaqooyin aad u liito kale, tusaale ahaan sida waxyaaba drugska maanka dooriya ama inay gangs iyo ku biiraan ama inay waxyaabahaas oo kale noqdaan. Marka taasina uma cuntanto nin aqoon-yahan. Maxaa lagaaga baahan yahay marka? Waxaa lagaaga baahan yahay my friend, saaxiibkayga qaaliga ah, in aad meel kastoo fursadu ay joogto raadi. Yes, fursadda adigu raadi, adigu abuur, adigu provider-ka noqo, adigu ka faa'iidaystaha noqo, adigu guulaystaha noqo. You need to create the chance. You have to create the chance. Fursadda adigu abuur. Gacmahaaga ku abuura fursadda. Soomaalidu waxay tiraahdaa xagla laaban xoolo kuma yimaadaan. Gacmaha Ilaahay way fidsan yihiin, laakiin irsaaqda Ilaahay waa la qaybiyaa. Maxaan ku iraahdaa Ilaahay markuu irsaaqda qaybinayana waxa uu siiyaa adoomadiisa kalaha ee shaqo taga. Marka dhalinyaro ama maxaan ku iraahdaa jiilka cusub, waxaan idinku boorinayaa inaadan kaliya farsamada aad maaragtay ku baratay aqoontaada kaliya aadan ku ekaanin ee xirfadaha kala gal. Mechanic noqo, macallin noqo, maxaan ku iraahdaa timajara noqo, whatever. Xitaa wax u noqo. Nabiga calaysay salaam wuxuu yiri intuu meel iska fadhin lahaa axadkiin ugu yaraan intuu masaar qaato oo kaynta aado qoryaha soo gurto kadibna ha gato. Yacni camalka ayuu nabigu dhiirigelin jiray calaysay salaam. Wuxuu ahaa nabigu barbaari ayuu ahaa. Kaliya ma bari jirin saxaabada sida Ilaahay u caabudaan, laakiin wuxuu bari jiray qaayadooda iyo shakhsiyadooda iyo qofka ay yihiin iyo naftoodaba ay u dhisi lahaayeen. Marka waxaan kugu dhiirigelinayaa wiilyahow ama gabar yahay inaadan kaliya xirfadii ama aqoontii yareed ee kuliyadda lagu soo bartay aadan ku qancin. Noloshaadu intaas way ka weyntaa. Waalid baad leedahay, walaal baad leedahay, riyooyin baad leedahay, humuum baad leedahay. Bal akademiyadda iyo kuliyadda aqooneed kaliya mahane isbedel shakhsi ah ama nafsaani ah ayaa loo baahan yahay. Qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay fursad. Fursad maxaa la yiraahdaa? Fursaddu waxaa la yiraahdaa waa waxa qofka u ogolaanaya in uu gaaro hadafkii ama ujeedooyinkii uu nolosha ka lahaa, welibana sida ugu fudud ee ugu macquulsan. Sidee? Yacni waad aragtay dunida maanta waxaa la yiraahdaa doqon kalkaala diracana fogeeya. Dunida maanta waxaa la yiraahdaa doqon kalkaala diracana fogeeya. Dunida sidaa ah ee fursadaha noocaasa heerkaas ay ka marayaan ka waran haddii aad tiraahdid waan iska faraxsan, maxaan ku dhahaa waa iska joogayaa xaafadeeda, iska joogayaa ciyaaraha Premier League iyo kuwa Isbaanishkan daawanaya, subaxiyaan kacayaa, laamigan tagaa, faaq maxaa la yiri wax aan waxba iga gelin aan ku qanacsanahay. Danna noloshayda sidaas aan u arkaa. I'm happy. Gurigan ku soo laabanaya, hooyo iyo maaragtay gabdhaha ila dhashaan ku qaylqaylina balay asaga dhigaano. Noloshu sidaas ma ahan. Waxaa loo baahan yahay fursaddu albaabka soo ma garaacdo. Fursadda raadi, adigu raadi. Waa in aad ka raadisaa dhagax hoostiis xitaa. Dhagax jabi. Anigu waxaan aqoon-yahan, anigu waxaan haystaa master's degree, aniga miyaa waxaan ka shaqeynayaa? No. Adiga ha ku qancin adiga oo wax bartay oo aqoon-yahan ah in oday aan waxba baran oo jaahil ah oo jufadaada ah uu kuu soo baryo shaqo. Ee waxa aad iskula weynaataa aqoontii aad baratay
iyo hooyadii iyo waalidkii iyo aabihii intaa ee sano ku sugayay inaad bal wax uun dooriya dadaalkoodii inaad la timaado. Fursaddu maxaan ku idhaahdaa waxay sideedaba ka timaadaa waxaa jira wax la yidhaahdo SWOT-ka markii la sameynayo. Strength and weakness, opportunity and threats. SWOT analysis-ka markii la sameynayo. Strength waa awoodda uu qofku ama shakhsigu leeyahay, ama maxaan ku idhaahdaa weakness-na waa daciifiyaadka ama waxyaabaha qofka daciifiyaadka uu leeyahay ee uu ku liito. Opportunity-na waa fursadaha uu haysto, iyo threats waxyaabaha cabsida ah ee maxaan ku dhahaa ka hortaagan fursadda inuu gaaro. Waxaa loo baahan yahay SWOT analysis-kaas inaad adigu isku samayso oo aad taqaano strength and weakness-kaaga xagee ka liidataa. Tusaale ahaan waxaad tahay qof ku liita maxaan ku idhaahdaa waxaad tahay qof ku liita quraan akhriska oo kale. Waa in aad fursad u abuuri kartaa inaad maxaan ku idhaahdaa maalintii 3 aayad akhriso. Al-ultimo waxaad gaaraysaa heera marka dambe akhriso 10 aayad. Kadib waxaad gaaraysaa heera maalinta dambe akhriso 15 sadar. Heera marka dambe akhriso xisib juz hakada. Marka shaqo walbana waa sidaas. Waxaad jeceshahay in aad maaragtay beeraley noqoto, ama inaad noqoto nin hoteelo iyo barnaamijyo waaweyn iyo dadka A-class-ka ah. Si aad taas u noqoto waxaa ka horeeya marka hore noqo nin shaqooyinka heerka hoose ah qabta, kadib nin dadka heerka dhexe ah ku biira, kadib you will be the last level, you will be maxaan ku idhaahdaa heerka sare ayaad noqonaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada hadda jirtoy, ama waad ila yaabantiin marka aan leeyahay dhalinyarada hadda jirtoy, aniga waa idinku da'aanahay, laakiin jiilkii naga horreeyay ayaan wax la soo qaybsaday. Sidee taas ku dhici kartaa? Markaan runta kuu sheego, anigoo yar ayaan waxbarasho bilaabay. Saasay tahay dad iga wada waaweyn aan wax la baran jiray oo galaaskan dhiganay. Ninka ugu da'da yar ama ninka labaad ugu da'da yar aan ahaan jiray. Marka laga reebo 2 nin miyaa aan rajeynaa inaan ka da'weynaa. Waa waagii iskuulka. Jaamacaddana sidoo kale ninka koowaad ama ninka labaad ugu da'da yar aan ahaa. Maxaan ku idhaahdaa haddana waxaan fursad u haystaa ama nolosha aan ka rajeynaya aniga oo da'yar inaan wax badan nafteeda iyo nolosheeda u qabto. Laakiin dadka dhalinyarada walaalahayga ah waxaan aniga markasta oo dhalinyarada jiilka cusub ee soo koraya ah markastaba ayaguna maaragtay ay iga dareemaan, amaba maaragtay aan mar walbana jeclahay inaan ugu rajeeyo in ay maaragtay noqdaan dad naxariis badan, dad daacad ah, dad wadaniyiin ah, dad maxaan ku idhaahdaa dal iyo dadba jecel, dad maxaan ku idhaahdaa naftooda wax u tara. Qofku Soomaalidu waxay tiraahdaa tiisa gabe tu kala ma kalkaalo naftaada. Adigu bal horta adigu isnoole, do something for yourself. Halka ayaan jeclahay inaan kusoo koobo barnaamijka Air Podcast-iga, ama maxaan ku idhaahdaa baahinta ah oo aan uga hadlay 3 shay oo ahaa maxaan ku idhaahdaa samirka iyo qofku bay'ada ama meesha nololeed, deegaanka nololeed uu ku nool yahay, inuu maaragtay nolosha inuu la gadgadoomo, gadgadoonka waayaha hadda meeshii noloshu geyso inuu kala soo baxo, iyo midda ugu dambeyso ah fursad, iyo fursad si loo abuuraa, iyo qofku inuu fursad samaysto. Insha Allah barnaamijyo noocan oo kale haddii aad ka heshaan amaba aad jeclaan lahaydeenna ii soo sheega. Insha Allah page-kana follow soo dhaha. Waa mahadsantihiin. Thank you very much.